الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، walaalyaal kelmadeennu maanta waxay ku saabsan tahay maadaama ay soo dhowaatay tobankii aadka u fadli badnaa oo cashru dilxij la odhan jiray oo ay biri oo axada bilaabanayso, ayaa waxaa lagama maarmaan noqotay inaan walaalaha ku baraarujinno tobankan fadliga ay leeyihiin iyo sidii looga faa'iidaysan lahaa tobankaas. maxaa yeelay waxay bilaabanayaan bishaan caadiga ah markay tahay aanu ku jirno maanta July 11 bay bilaabanaysaa. sidaa daraaddeed marka qof walba waa inuu u diyaar garooba. marka maxaanu uga baahannahay inaynu ka fiirino? waxaan fiirinaynaa bimaa nastaqbil, maxaan la qaabilaynaa tobankaa beri oo layna ka raba inaan la qaabilno. fadligeeduna muxuu yahay? maxaan samaynaynaa oo la sunneeyey in la sameeyo? saddexdaa jiho ayaan ka fiirinayna. waxaa marka inooga damayn doona axkaamtii ciidda iyo sidii maarta loo kala horumarin lahaa. laakiin waxaan ku horumaraynaa bimaa nastaqbil, maxaanu la qaabilaynaa tobankan beri. faqad habata waxaa ka sugnaatay fii fadli ayaami alcashri, ayaamahaas fadliga ay leeyihiin nabigeena calayhi salaatu wassalaam, حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إنه يري ما من أيام العمل الصالح مجرى مالما عملك الصالح أهي فيهن مالمها دحضوضة أحب إلى الله إلهي لو جعل عن بديه من هذه الأيام العشر. مجرى مالما عملك صالح مالمها لو قفل لبديه ومالمها كقفل لبديه مجرى عمل صالح والله سميه مالمها ومالمها عمل صالح الله سميه وقفل لي بدن. سيدا درادد مركاسي هل سؤال ويدي النبي عليه الصلاة والسلام وحيدهن ولا الجهاد يا رسول الله؟ جهاد كنا كوفل لي بدنمية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مركاسي النبي وقول جوابي ولا الجهاد في سبيل الله أنا كوفل لي بدنا إلا رجل ننما هنا خرج بنفسه وماله، قف نفتيسي يا مالكيسي والله بحي فلم يرجع من ذلك بشيء، قف كاساك في اللي بدل. marka walaal fiiriya meesha la gaarsiiyay mar nafiya maal boqof horay iyo amalka aad tobanka bari la timaade waa isdhaleegi. sidaa daraaddeed marka walaalayaal amal kasta oo la sameeyo oo qofka uu fudud oo sameeyo maalmahan ajirkiisa waxba lagu daraya waa laga sii siyaadinaya. salaada hadii awl in ajir lahayd ajir badan lagu sii daray. إمام أحمد وحوري رحمه الله حديث كعبد الله بن عمر سجنا ما من أيام أعظم عند الله مجرى مال ما إلى أكتس كوين، ما من أيام مال مجران أعظم كوين عند الله ألا أكتسه ولا أحب إليه من العمل فيهن إن عمل سمينا إلهي كجعل ياهي من هذه الأيام العشر. طبعا كان بريء. فاكثروا فيهن بدية من التهليل لا إله إلا الله كوردية، والتكبير الله أكبر كوردية، والتحميد الحمد لله كوردية. وهدي آدم مركا قرآنكي يو علمي أو كلا آدم فافين كرين، لكن هذا قرآنكي تقاند أفضل ذكر عند الله وقراءة القرآن. مركا محين ولا قابلنا كو بالتوبة الصادقة، توبة رنقة، توبة النصوح. تو إلهي قرآن كل شيء وإلهي كيري توبة كان توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وحامدنتنا محققة كتين إن إلهي دنبقينا دافيو هدي وحكا خلدنايين توبت كان على قاربا إنا كود داشي توبت كان طبعا على تمادد أو قوان. ثانيا العزم الجاد، قوان كما دنبيسة على اقتنام هذه الأيام إنا كفا إذا ستبان كابري من الأجور أجر يدا ماشا يا الله يا برواقرة الله inaad ka faa'iidaysato inaad go'aan ku gaadhid aysan ciyaar ku dhaafin. maxaa yeelay maxaa sameyn ka dhaa shanta salaadood masaajidka ku ilaalin ka dhaa, waxa sameyn ka dhaa ma garanaysaa ya quraankiiba akhrin ka dhaa, sadaqaad la bixi ka dhaa, waa wada soomi ka dhaa, waxa soo dhan baa ku wada banaan. ثالثا waxaan la qaabilaynaa al-bu'd 'an al-ma'asi, inaan dambiyadii ka fogaano. hadday aqwaal ahaayeen iyo hadday afcaal ahaayeen iyo hadday maali ahaayeen
iyo hadday wax kale ahaayeen ummadda dhib ku haysa ay ahaayeen intiiba macaasidii inaad ka fogaatid dunuubta inaad ka fogaatid maxaa yeelay dembiga aad la timaada laba jibaar aa lagu qoraya khayrka aad la timaadaana laba jibaar baa lagu qoraya sidaa daraaddeed ayaa waxaa la doonayaa walaalayaal inaynu la qaabilno macaasidii inaynu ka fogaano oo ayn sideedana iyadoo ayna ka xarimta macaasidu laakiin 10 barina waa kasii dembi badanta dembiga aad 10 bari la timaadaa dembigii caadiga ah ma aha waa kasii dembi badan yahay maxaa yeelay mawaasin baa jidha looga faa'iideysto khayrka oo haddii aad dembi la timaadid dembigii 2 jeer lagu sii qorayo oo lagu sii laabalaabayo ilaahay baan ka magan gelin fadligeeda marka haddaynu iyaduna u dhaqaaqno fadligeeda maxaa ka mid ah ina allaha tacaala aqsama biha ilaahay baa ku dhaartay wa kafaa biha fakran shayga ilaahay ku dhaartayna waa shay weyn walidaalika baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi qowluhu tacaala waalfajri walayaalin cashr subaxii baan ku dhaartay iyo walayaalin cashr maalmihii 10 ahaa waxaa ku fasiray sidaas jamhuurulmufasiriin ayaa ku fasiray walkhalaf ayaa ku fasiray ibnu kathiir wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya tafsiirka aayadda wa huwa saxiix waa sida saxiixa ah walayaalin cashr inay tahay 10 beri maadaama marka ilaahay ku dhaartay aaday u fadli badan yihiin waay walidaalika marka iyadana qodobka labaad oo fadligeeda waxaa ka mid ah annahu yowmu ikmaalu diin wa itmaamu nicma waa maalinkii ilaahay diinta uu dhammaystiray wa itmaamu nicma nimcadiina uu dhammaystiray yuhuudda waxay ku dhaheen cumar bin khitaab markay la hadlayeen innakum taqra'uuna aaya waxaa akhrisaan hal aayad low nasalat fiina hadday annaga nagu soo degi lahayd latakhadnaaha ciidan maalinkaa waxaan ka dhigan lahayn ciid faqaala cumar wuxuu yidhi innii anigu la aclamu waxaan ogahay xaysu unzilat meesha ay ku soo degtay wa ayna unzilat iyo goorta la soo dejiyey wa ayna rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam xiina unzilat iyo markay soo degaysa nabigu meeshuu joogay yowma carafa ayay soo degtay wa innaa wallaahi baan ku dhaaranay bicarafaan joognay qaala sufyaan wuxuu yidhi wa ashuku kaana yowma aljumcati am laa alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaamu diinan maalinka ay soo degaysay waa maalinkii diinta lamis waa maalinka carafa marka sidaas ayuu caddeeyey cumar marka yuhuudkii warkiisii waa lagu celiyey markaas oo waxa weeye waadar ciid bayba noo tahay waa maalinka carafa weye marka waxaa ku jira waa maalinkii diinta la dhammaystiray ayaa ku jira oo yowma carafa ah 10 beri hadday carafa keliya ku jira leed xataa iyada ayaa fakri iyo faan ugu filnaan lahayd iyo fadiilo qodobka saddexaad oo fadiiladeeda ina tusinaya walaalayaal waxa weeye al-ujuuru fiiha mudaacafa ajaryada waa la laalaabaa maalinkaas 10 qodobka afraadna oo salaad haddaa la timaado 2 salaadood ajarkooda lagu qoraya soom haddaa la timaado sunnaana 2 sunno ajarkooda lagu qoraya sadaqa haddaa timaado 2 sadaqa waa lagu laalaabaya afar qodobka afraad oo fadiiladeeda ka mid ah waxa weeye annaha al-ayaam al-macluumaat التي شرع فيها ذكره ومالمه اللي يري 10 الأيام المعلومات قرآن كاللغو شاقي ويه إلهي سبحانه وتعالى قرآن كم يري ويذكر اسم الله في أيام معلومات حس إلهي 10 مالموت على ما رزقهم من بهيمة الأنعام بركة ذكرك إلهي إلا بديو أي إلهي النوش شاقي جمهور العلماء وحيدهن على أن الأيام المعلومات هي 10 من ذي الحج بينهم منهم وحكم إذا دتكاس جمهور العلماء ابن عمر وابن عباس baa ka mid ahaa wa tafsiir ibn kathir nasaasu soo guurinaya qodobka sanaad oo fadaa'isheeda ka mid ah waxa ka mid ah anna rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam shahida laha wuxuu u qiray ugu markhaanti kacay biannaha afdalu ayaami dunya inay tahay adduunyada maalmo soo mar maalmihii ugu fadli badnaa inay tahay jaabir waxaa laga warinayaa inuu yiri rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayhi afdalu ayaami dunya alcasr adduunyada waxaa ugu fadli badan 10 beri maalmo soo mara 10 dilxij marka walaalayaal waxaa kaloo qodobka lixaad ka mid ah fadaa'isha 10 beri ay leeyihiin ana fiha yowm carafa maalinkii carafa ayowm alxaj alakbar ayaa ku jira ilaahay inta xajka aadana ha ka aqbalo innagana inoo dembigana ha inoo dhaafo maxaa yeelay soomkeedana wa yowmu makfiratu dunuub waa maalinka ilaahay dadka dembiyada uu ka dhaafay ilaahay hayna ka dhaafee wa anna siyaamah soomka maalinkaa la soomaa qofkii aan xaj ahayna yukafaru asanata almaadiya waalbaaqiya waxaa lagu dhaafaa sanadii tagtay iyo midda soo socota walbaaqiya sidaa daraaddeed marka riwaaya waxaa warinaya rawaahu muslim wa axmed wa tirmidi ayaa warinaya waa yowmu lcidqi min anniiraan waa maalinkii ilaahay dadkiisa uu ka xoreynaya naaraha uu ka xoreynaya ilaahay hayna ka xoreeya qodobka 7 waxaa ka mid ah
anna fiiha yowmu naxri maalinkii wax la qalayay waaye baa ku jira tobanka oo ciiddii baa ku jira alciid alakbar ayaa ku jira waana maalinka tobnaad min dilxij wa awalu ayaam min ayaami alciid maalmaha ugu horeeya ciidda maalinka ugu horeysa waay oo tobanka ku jira wa huwa min afdali alayaami cinda allah waana maalmaha ilaahay agtiis kuwa ugu fadli badan waaye sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi ina acdama alayaami cinda allahi tabaaraka wa tacaala yowmu naxri iyo ثم يوم القر أيا كحكته يوم القر وحال ده هو يوم الذي يلي يوم النحر ما نك كحكته أيا يوم القر اللي هذا ما نك عيد ولا تكذا ما نك ضميس سداد وحكم ذا ولا ليال اجتماع أمهات العبادات فيه اجتماع أمهات العبادة فيها وحكو كل مي هو يودي عبادة أيا كل مي هو ينك عبادة ومحاكم ذا حافظ ابن حجر وحكير في فتح الباري سببت أي مارتي آدك وقف اللي بتوحى كمدا أن السبب في امتياز غير أن السبب في امتياز 10 ذي الحج أي لقى نقطة وحوية لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وحاكو كل مي صلاة دي وحاكو كل مي صومكي سيدا هنا صوت شاقني وحاكو كل مي هو أركان الإسلام كي اسكده أمهات العبادات وحكفي عن إن الله أركان الإسلام كي markii laga reebay shahaadada salaadii soomkii sadaqadii iyo xajkii maalma ay kulmaanna ma jiro ilaa maalmaha maahane sidaa daraadeed waxaa hadalkeena hadda aan ku soo khatimaynaa qodobkan sideedaad oo ugu dameeyay fadaa'ishii waxaynu ka soo hadnaa laba mowduuc maxaynu la qaabilaynaa maalmahaas iyo fadliga ay leeyihiin maalmahaas وبالله التوفيق وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.